kulan wacan saaxiibayaal meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada wararka Soomaalida iyo YouTube channel-keena Captain K. Qodobada aad wararka ku daawan doontaan waxaa ka mid ah Ra'iisul Wasaare Roble oo amar siiyay gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka. Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo walaac ka muujiyay sida ay ku bilowdeen doorashooyinka golaha shacabka. Mahad Cabdalla Cabad oo dib loogu doortay kursiga golaha shacabka. intaas waxay ahaayeen qodobada ugu door karoonay wararka Soomaalida YouTube channel-keena Captain K. fadlan daawada haddii ay tahay markii kugu horeysay subscribe dhegan baleelkana furo si aad u noqoto daawadaha u horeeya ee hela wararka iyo warbixinadeena. like saar muuqaalkan si uu dad badan u gaaro wixii fikrada ahna qaybta commentiga noogu reeb mahadsanidin. aynu ku bilownay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa kulan la qaatay gudoomiyaha guddiga hirgelinta. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa kulan la qaatay gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal Maxamed Xasan Ciro. Ra'iisul Wasaaraha ayaa gudoomiye Ciro kala hadlay toosinta iyo hufnaanta doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo xaqiijinta inaan cidna lagu xadgudbin. gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal Maxamed Xasan Ciro ayaa Ra'iisul Wasaaraha siiyay warbixin la xiriirta habka ay u socdaan doorashooyinka golaha shacabka isagoona u cadeeyay inay si hufan u qabanayaan doorashooyinka. kulanka Ra'iisul Wasaaraha iyo gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal Maxamed Xasan Ciro ayaa ku soo beegmaya xilli xubno u badan musharaxiinta madaxweynaha ay walaac ka muujiyeen sida ay ku socdaan doorashooyinka iyaga oo dhaliilay Ra'iisul Wasaaraha. dhinaca kalena madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ahna gudoomiyaha midowga musharaxiinta ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo bilaabashada doorashada golaha shacabka balse uu walaac xoogan ka muujinayo habka ay ku bilaabmeen doorashooyinka golaha shacabka. qoraal gaar ah uu soo saaray Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayuu ku sheegay in doorashada ay kadib dhacday waqtigii dastuuriga ahaa ee loogu talagalay muddo ku dhow sanad ayna u baahan tahay dardargelin iyo in laga feejignaado dib u dhac ku yimaada mar kale waqtiga loo qabtay dhamaystirkeeda. sidoo kale waxa uu walaac xoogan ka muujiyay sida ay ku bilaabmeen doorashooyinka golaha shacabka isagoona sheegay inay jiraan cabashooyin ku aadan hanaanka doorashada loo maamulayo ayna keeni karto inuu muran ka dhaco natiijada doorashada golaha shacabka haddaanan la ilaalin daahfurnaanta doorashada iyo habraacyada lagu heshiiyey 17 Sebteembar iyo 27 May 2021. ugu dambeyntii Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ugu baaqay guddiga doorashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo guddiga xalinta khilaafaadka doorashada inay dhaqan geliyaan habraacyadii iyo hanaankii lagu heshiiyey ee doorashada golaha shacabka kana fogaadaan wax walba oo keeni karo eex iyo musuqmaasuq taasoo dhici karto natiijada doorashada iyo geedi socodka dowladnimada. dhanka kalena magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa waxaa maanta lagu qabtay doorashada kursiga Hoob 104 uu mar kale ku guuleystay kursigaasi gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Mahad Cabdalla Cabad oo 4 sano ee la soo dhaafay ku fadhiyay. kursigan ayaa waxaa Mahad Cabdalla Cabad kula tartantay Shukri Cali Faarax waxaana ugu dambeyn ku guuleystay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Mahad Cabdalla Cabad oo helay 84 cod halka Shukri Cali Faarax aysan helin wax cod ah waxaana xumaaday 17 cod. doorashada kursiga Hoob 104 oo uu ku soo baxay Mahad Cabdalla Cabad ayaan yeelan wax xiisa ah maadaama tartan adag uusan ahayn. dhanka kalena waxaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyo magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug lagu kala doortay kuraas ka mid ah golaha shacabka ee ka soo kala jeeda Galmudug iyo gobolada waqooyi ee Somaliland halka kursiga Hoob 272 oo ka mid ah kuraasta gobolada waqooyi ee Somaliland ayaa lagu doortay magaalada Muqdisho waxaana ku tartamay Maxamuud Cabdiraxmaan Cumar, Qadra Axmed Ibraahim iyo Cabdiqani Maxamed Nuur balse waxaa kursiga ku guuleystay Maxamuud Cabdiraxmaan Cumar oo helay 65 cod halka labadii musharax ee la tartamay ay kala heleen Qadra Axmed Ibraahim 25 cod, Cabdiqani Maxamed Maxamuud 7 cod waxaana kursigan hore ugu fadhiyay Guuleed Ciidruus Cige. xildhibaan Maxamuud Cabdiraxmaan Cumar oo maanta lagu doortay magaalada Muqdisho kana mid noqday xildhibaanada golaha shacabka ayaa waxa uu ka mid ahaa musharaxiintii ku guuldareystay sanadkan doorashooyinka golaha wakiilada ee ka dhacay Somaliland isagoona ka sharaxnaa gobolka Maroodijeex. sidoo kale magaalada Dhuusamareeb waxaa lagu qabtay doorashada kursiga Hoob 26 oo ay ku tartameen Yuusuf Geele Ugaas iyo Cabdiqaadir Cabdullaahi balse waxaa ku guuleystay Yuusuf Geele Ugaas oo horey loogu doortay kursiga aqalka sare balse iskaga tagay waxaana helay 82 cod halka musharaxiinta la tartamayay ee Cabdiqaadir Cabdullaahi uu helay 4 cod.
maalmaha soo socda ayaa waxaa lagu wadaa in mar kale magaalooyinka Muqdisho iyo Dhuusamareeb lagu qabto doorashooyinka golaha shacabka gaar ahaan kuraasta ay hore u shaaciyeen guddiyada doorashooyinka heer federaal. dhanka kalena ciidamada Puntland ayaa ka hor yimid go'aanka madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo xilka ugu magacaabay agaasimaha cusub ee ciidamada Puntland kuwaas oo hogaamin doona ciidamada Puntland waxa ay sheegeen in go'aankan uu baalmarsan yahay sharciyada xeerarka ciidamada iyo dhaqanka suuban. Maxamed Amiin Cabdullaahi Xijaar Khayre ayaa loo magacaabay agaasimaha guud ee hay'adda BSF ee ciidanka Puntland sida laga soo xigtay war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Puntland. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cismaan, gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Hiiraan Axmed Cabdullaahi Cismaan ayaa maanta kulan la qaatay saraakiisha ciidamada AMISOM ee ku sugan magaalada Beledweyne. kulankan ayaa waxaa lagu gorfeeyay xaaladda guud ee amniga iyo sidii loo sii dardargelin lahaa howlaha amniga magaalada iyo sugidda amniga goobaha doorashooyinka lagu qaban doono magaalada Beledweyne. Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa ay ka mid tahay goobaha sanadkan loo asteeyay inay ka dhacaan doorashooyinka golaha shacabka. ugu dambeyntiina dalalka Jarmalka iyo Faransiiska ayaa noqday dalalkii ugu dambeeyay ee muwaadiniintooda kula taliya inay iskaga baxaan dalka Itoobiya xilli ay sii xoogeysanayaan dagaalada sokeeye ee dalka ka dhacaya. Wadamada Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa iyagana dhowaan soo saaray talooyin ay u jeedinayaan muwaadiniintooda ku sugan dalkaasi oo ku aadan inay dalka iskaga baxaan. Mareykanka iyo UK ayaa dhowaan soo saaray talooyin kuwaas la mid ah halka qaramada midoobeyna ay bilowday daadgureynta shaqaalaha caalamiga iyo qoysaskooda. arrintan ayaa imaanaysa iyadoo xoogagga TPLF ay sheegeen inay ku wajahan yihiin magaalada caasimada ee Addis Ababa. Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa wacad ku maray inuu tagayo furinta hore ee dagaalka ciidamada federaalka ee kula jiraan TPLF. colaadda ka socota dalka Itoobiya muddada sanadka ah ayaa horseeday xaalado bini'aadanimo oo aad u liidata oo ka jira gobolka Tigray ee ku yaala waqooyiga Itoobiya. kumanaan ruux ayaa la dilay halka malaayiin kalena lagu qasbay inay ka cararaan guryahoodii. guud ahaanna waa naga intaa wararka Soomaalida ee aad ka daawanayseen YouTube channelkeena Captain K. Tani iyo warkan warka xiga intaan ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.